hay-adaha ammaanka badda ayaa sheegay in rag burcadbadeed looga shakaysan yahay 15 Juun ay isku dayeen inay weeraraan markabka xamuulka qaada ee Great Star xilli uu marayay koonfurta xeebaha Yemen sida ay sheegtay shirkadaha ammaanka badaha markabka oo wata calanka dalka Panama ayaa waxa ku soo dhawaaday doonyo ay saarnaayeen rag hubeysan kooxdaasi ayaa rasaas cusub ku furtay markabka iyadoo dhacdadu ay ka dhacday meel qiyaastii 14 meel badeed ugu jirta xeebaha Yemen warbixintu waxa ay tilmaamaysaa in shaqaalaha markabka ay si degdeg ah u qaadeen tallaabooyin amni oo ay ka mid yihiin kordhinta xabaaraha markabka iyo hirgelinta habraacyo ka hortag ah taas oo ugu dambeyn sababtay in isku dayga weerarku fashilmo lama soo sheegin wax dhaawac ah oo ka dhashay dhacdada dhanka kale hay'adda UK Maritime Trade Operation ayaa xaqiijisay inay la socoto dhacdada isla markaana baaritaan ku wado hay'addu waxa ay maraakiibta ku sugan aagga kula talisay inay muujiyaan feejignaan dheeraad ah isla markaana si degdeg ah uga warbixiyaan dhaqdhaqaaq kasta oo looga shakiyo sidoo kale weerar kale oo la xiriira burcadbadeednimo ayaa laga soo sheegay biyaha u dhow Soomaaliya gaar ahaan meel qiyaasii 32 meel badeed koonfur kaga beegan deegaanka Xaafuun ee gobolka Bari wararka ayaa sheegaya in laba doonood ay saarnaayeen ilaa 12 qof oo hubeysan ay ku dhawaadeen markab xamuul guud sida shirkadda la talinta ammaanka badda ayaa sheegtay in kooxaha hubeysan ay rasaas ku fureen markabka isla markaana ku amreen inuu istaago xilli uu ku socday xabaaro hoose oo ka yar 5 meel saacadii kooxda ilaalada gaarka ah hubeysan ee saarneed markabka ayaa la sheegay inay iska caawiyeen weerarka iyadoo labada dhinac ay rasaas iswadaarsadeen muddo ku dhow 30 daqiiqo ugu dambeyn kooxii weerarka soo qaaday ayaa dib loo celiyay waxaana lagu guuleystay in markabka laga badbaadiyo afduub ama qabasho kadib fashilka weerarka markabka ayaa kordhiyay xabaarihiisa ilaa 7 meel saacadii wuxuuna bedelay jihadiisa si uu uga fogaado khatarta ma jirto wax dhaawac ah oo laga soo sheegay shaqaalaha markabka ama ilaalada hubeysan ee saarneed dhacdooyinkan ayaa ku soo aadayay xilli hay'adda magaceeda loo soo gaabiyay UK MTO ay hore uga digtay korarka weerarada burcadbadeednimo ee ka dhacaya marinbiyoodka muhiimka ee gacanka cadmeed iyo xeebaha bari ee Soomaaliya hay'addu waxay xustay in dabiiqadii bishii Abriil la diiwaangeliyay weeraro dhowr ah oo ay ku jiraan afduubka labada markab weeraradan ugu dambeeyay ayaa mar kale sare u qaaday walaaca laga qabo amniga maraakiibta ganacsiga ee isticmaala marinbiyoodka gacanka cadmeed biyaha ku dhow xeebaha Soomaaliya kuwaas oo muhiim u ah socodka ganacsiga caalamiga ah